thumbnail aad iyo aad u qurux badan baan sameynay soo jiidasho leh baan sameynay qofku markuu saaisha ugu dhufto aanu ka jeedsanin baynu sameynay marka السلام عليكم صاحبي السود وهذا إن شاء الله تعالى ما تروح نكهد لدونا سيدا الله سمعيه يوتيوب thumbnail إنه قاعد يكسرنا موبايل كينا إن شاء الله تعالى وحنا نقص من دونا برنامج كلاه يغاني بيكسل لاب لكن كهورين تينا برنامج بيكسل لاب صوفورين قفك أنا في هنزنين وحوي هاي thumbnail وحوي عندك يوتيوبرز كأي قرنا يا يوتيوب كانوا قلي دونا thumbnail كده وحوي مركز يوتيوب كقلنا مركز سوينا أركي دونا وحوي نصور كام مقالة دول صارن صور كاس دول صارن مقالة ayaa loo yaqaanaa thumbnail insha Allah taala kaasaynu sameyn doonaa design gareyn doonaa waliba qaab soo jiidasho leh insha Allah taala u sameyn doonaa talooyin badan insha Allah taala way la wadaagi doonaa marka insha Allah taala waxaan soo furan doonaa barnaamijka Pixel Lab oo lagu sameeyo qofka aan fahansaneyn barnaamijka loo yaqaano Pixel Lab waa inuu soo daawadaa muuqaaladii hore aan hore u sameeyay muuqaalada qof kasta oo soo daawada si fiican ay u sameyn karaa thumbnail iyo waxyaabo kasta oo lamida sida awgeed marka ugu horeysa barnaamijkan ugu laaban doonaa barnaamijka Pixel Lab waa kan waxa weeyaan muuqaaladii horena sidaan hore u sheegay commentiga ugu horeeya ka daawan karaa qofka inagu cusub ee aan nala socon haddii aad hore noola socoteena soo dhawow baan ku leeyahay marka thumbnailadu way kala duwan yihiin platformyaduna way kala duwan yihiin laakiin marka YouTube-ka laga hadlayo thumbnailkiisu halka waa ku jira size-kiisu si aynu soo furno marka waxaan tagi doonaa halkaas saddexda dhibcood ay ku dhufan doonaa kadibna size-kiisu waa kan image size baynu ku dhufan doonaa image size markaynu doorano waxa uu noo soo furi doonaa daaqada yar daaqada marka uu noo soo furo halkan aynu soo furi doonaa isha yar ishaas markaynu soo furno halkan waxaynu ku arki doonaa waxyaabo fara badan laakiin YouTube thumbnail waa kan taas ayaad select gareyn doontaa deetana okay baynu odhan doonaa u fiirso okay markaan niraahno waxay noo soo baxday shaashad ka duwan tii marka hore aan meesha ku haysanay marka waxaan sameyn doonaa tagaskaas aynu iska delete gareyn doonaa marka ugu horeysa tagaska markaynu iska masaxno ama iska delete gareyno intaa kadib waxaan sameyn doonaa waa inaynu canvaska background-kan waa inaynu wax ka bedelnaa background-kan imika sidan u eg waa inaynu colorkiisa midab kale inaynu ka dhignaa kadibna waxaanu ku dhufan doonaa halkaas markaynu ku dhufano kadibna waxaanu kusii dhufan doonaa halkay ku qoran tahay colorka markaynu ku dhufano halkan laba qaybood uu colorku u qaybsamaa qayb gradient iyo qayb color caadi ah marka qaybta hoose ee gradient-ga haddaynu doorano waxay noo soo bixi doonaa kalaraan laba iskugu jira halkan kalaraan badan bay ugu diyaarsan si aynu markaa mid cusub aynu soo sameeyno halkan calaamadda wadartaynu ku dhufan doonaa u fiirso halkan markaynu ku dhufano intaa kadib waxaan sameyn doonaa halkan waxa jira laba shay baa halkan yaala ama labada midab ee uu colorkan ka kooban yahay ay labadan qaybood noo kala tilmaamayaan sida awgeed bal qaybtan koowaad aynu marka hore soo qaadan doonaa qaybta markaynu soo qaadano ama nu select gareyno halka koorna halka yar waxaad ku arki doontaa guduud yar inuu waxoogaa ka soo galay kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa khadka intaa kadibna waxaan dooran doonaa colorkayna waa aynu rabno tusaale ahaan anu colorka tusaale ahaan imika aan rabaa waa guduudkaasaan tusaale ahaan dooranaya koornaha guduudkaasaan taabanaya deetana waxaad arkaysaa in halkanba guduud ay noqotay kadibna si aan guduud uga sii dhigo halkaasaan riixi doonaa halkan fiirso saasaan u riixi doonaa deetana guduud baynu kasii dhignay marka anagu colorkaynu dooranaa waa colorka imika guduudka aadka waa halka sare mar walba kaaga muuqan doonaa kadibna okay baan siin doonaa u fiirso okay markaynu siino haddana waxaan sameyn doonaa insha Allah taala qaybtan labaad baynu dooran doonaa ee colorka labaad ka kooban ee imka waxoogaa cagaarka u yar eeg kadibna markaynu taabano ama aynu doorano saa u select gareyno iyadna sidoo kale guduud halkan ku yara yeelatay intaa kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa u fiirso halkan markaynu ku dhufano iyadna waxaynu ka dhigi doonaa cadaan colorka cadaankaas ayaan u helnaa halkaas centerku ku badan yahay sida ay u badan tahay ama sida ay u muuqato centerkaynu markaa dooran doonaa centerka markaan doorano colorkeeni saas u eegaaday si haddaba aynu cadaan uga sii dhigno waa inuu tan riixnaa sidoo kale halka u riixnaa deetana waxa uu noqday cadaan buu boqolkiiba noqday kadibna halkan okay baynu ku dhufan doonaa u fiirso okay markaynu ku dhufano intaynaan meel kale hadaba u riixin waxaanu riixi doonaa intaynaan meel kale tegin halkan inuu riixi doonaa colorka qaybtaynu ku badinana ama centerka ama soo koornayaasha marka anu muga koornahaasaan ka dhigi doonaa tana riixi doonaa halkaasaan marin doonaa areadaasaan geyn doonaa weliba tana waan soo dhaweyn doonaa xoogaa baan soo dhaweyn doonaa colorkan halkaan ka dhigi doonaa deetana waxaan rabaa qaybtan inay guduud caadi ahaato qaybtana ay ahaato xoogaa yara cadaan oo kala kadibna okay baynu ku dhufan doonaa imika sida kugu muuqata waxa weeyaan color halkan waxa istaagay halkaas waxa weeyaan cadaan waxoogaa dhulkan kalena waa ka duwan yahay dabcan kadibna halka calaamadda check markaynu saarnay sidaas baynu background fiican oo qurux badan ku samaysanay kadibna waxaanu ku soo dari doonaa waxyaabo tusaale ahaan anagu thumbnail tusaale aynu soo qaadanayno kadibna waxa weeyaan halkan calaamadda blast ama calaamadda wadarta
ayaynu ku dhufan doonaa kadibna from gallery ayaynu kaga soo dari doonaa sawiro laba sawir baan insha Allah taala ku soo dari doonaa okay galleryga waxaan kaga soo daray sawirkaas ninkaasan kaga soo daray kadibna check mark baynu saarnay halkan uu soo istaagay area-daas ayaynu soo dhigaynaa dabcan area-daas ayaynu soo dhigaynaa colorkiisa ayaynu soo dhigi doonaa sawirkiisa baan ka wadaa okay kadib haddana mar kale aynu ku noqon doonaa sawir kale aan kaga soo dari doonaa sawirkii kale waa kan aan imika dayaraynayo weeyaan kadibna halkaas aynu dhigi doonaa halkaa markaynu dhigno kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa isagu noo select garaysan meel kale ma taabano isaga noo select garaysan sida ku muuqata kadibna halkan stroke aynu ku dhufan doonaa halkan aan soo furi doonaa xoogaa stroke oo cadaan aynu samayn doonaa si ay koornayaasha cadaan uga yara muuqato sida ku muuqata tii kale si fiican kuugu muuqan weydana telefoonkaaga baad ku tijaabin doontaa insha Allah tusaale halkaas aynu soo dhignay okay weeyaan wax walba marka hadaba thumbnail-ku waxa uu ka kooban yahay sawiro iyo qoraallo waxaana mar walba muhiim ah inaad target saarto waxa qofka soo jiidan kara mar walba wuxuu kaaga baahan yahay creativity mar walba kaaga ma baahna inaad shaqo kala qabato wuxuu kaaga baahan yahay hal abuurnimo taban waan oran karnaa waayo waxa weeyaan thumbnail-adu isku wada mid ma noqon karaan thumbnail cid kale leedahay ma soo qaadan kartid oo waxa weeyaan wax laga yaabaa in copyright lagugu qabto hadaad thumbnail cid kale leedahay aad soo qaadato ama soo download karaysto ama raadsato sidaa awgeed waxa muhiim ah in aad creativity la timaado dadkana waxa muhiim ah marka thumbnail aad u sameynayso hadda qoraaladii weli noo dhiman laakiin talooyin baan idin wadaa waxa weeyaan dadka marka thumbnail aad sameynayso dadka soo jiidasho leh qofku waxa uu sameynaya scrolling marka uu ku dhex jiro baraha bulshada shaashadii buu riixaya marka waxa attention-kiisa soo jeediya automatically ayuu u jeestaa qofku attention-ka dadka si aad soo qabsato laba shay baa muhiim ah kow color-ka aad ku sameynaysaa wax horta waa inuu ahaada color aad attractive ah oo full color ah sida cadaan full ah iyo guduud ama casaan full ah akhtar full ah waxyaabahaas oo dhan aad u buuxa colorful waa inuu ahaada iyo blue iyo coloranta aadka calaamada inta badan lagu sameeyo ayaa aad iyo aad wax soo jiidasho badan baa la yiraahdaa marka waxa weeyaan colorku waa inuu full ahaada inta kadibna waxa weeyaan waa in sawiradu ay yihiin kuwa ka turjubaya waxa ku jira gudaha haddii inta laga waayo wax laga yaabaa in xataa algorithm-ku hoos ku dhigo oo inta dadka wax been ku soo jiidasho deetana dadku markay gudaha u galaan ay markaaba 2 minute gudahood ay dib uga laabtaan looma baahna waxa loo baahan yahay waxa meesha kuugu jira iyo waxani waa inay iswaafaqsan yihiin ta kale waxa weeyaan qofka scrolling-ka sameynaya qoraalada hadaad badiso dhaqso ma akhri karayo marka waxa loo baahan yahay in qoraalo yar oo kooban ku qorto oo soo jiidasho leh oo fartuna aan ahayn mid daciif ah ama nooc faraha kamid oo aan la akhri karin waa inaan ahaan far clear ah waa inay ahaataa intaas waa talooyinka qoraalada baynu ku qorinaa imika waxa weeyaan halkaas baynu ku dhufan doonaa u fiirso halka calaamada tagaskaynu ku dhufan doonaa deetana tagas baynu dooran doonaa tagaski waa halka inooga soo booday sida ku muuqata intaa kadib tagaskaas aynu soo qaadan doonaa laba mar baynu taaban doonaa kadibna waynu iska tirtiri doonaa waxaanu ku qori doonaa tusaale ahaan anu waxaan sameynayaa waxa weeyaan dabcan sida idin muuqata waxaan sameynayaa thumbnail-kii ugu dambeeyay aan sameeyay color-kiinu ka bedelayna u fiirso asxaabta ilaa socotay si fiican buu fahmaysaa imika waxa weyn bold baan ka dhigayaa boldna waan iga ka dhigay haddii aad nagu cusub tahay waxa muhiim ah inaad muuqaaladii hore soo daawato application-kan aad si fiican ula soo qabsato laakiin casharkani waxa uu khuseeyaa qofka application-kan fahansan ama hore u isticmaali jiray si fiican buu fahmi doonaa qofka inagu cusubna waxa muhiim ah in muuqaaladii hore soo daawado haddii kale waqti badan bay kugu qaadan doontaa deetana tagas kale inuu kusoo darsanay u fiirso waxaanu ku qoraynaa allah mustacaan thumbnail-kii ugu dambeeyay saas waxaa baan malaynayaa sidaas haddaad imika u qornay u fiirso deetana iyadna colorka waxaanu ka dhigi doonaa cadaan boolkan kama dhigayo aad uma weyneynayo u fiirso kadibna waan koobiyeynayaa mar kale koobigaasaynu ku dhufannay halkaasay noo timiday deetana waa tan allah mustacaan waxaanu ku qoraynaa youtube abka cusub ee youtube saan looma qoro youtube saasay u qoran tahay sidaasaa sax kadibna waxa weeyaan tan waxoogaa baan yaryaraynayaa sawirkaan iskaga durkinayaa okay kadibna waxaan ka dhigayaa tan bold baan waxoogaa ka yara dhigayaa marka far kale waa iska dooran kartaa laakiin fartu waa inay ahaataa mid kaleera imika waxa weeye thumbnail-ka qof kastoo arkaa si fiican buu fahmayaa thumbnail aad iyo aad u qurux badan baan sameynay soo jiidasho leh baan sameynay qofku markuu saa isha ugu dhufto aanu ka jeedsanin baynu sameynay marka thumbnail-kaasi mar walba ku anfacaya haddaad si qurux badan u samayso mar walba ku anfacaya waxaan rajeynayaa qof walba inuu fahansan yahay application-ka Pixel App baa la dhahdaa tutorialkiisa commentiga ugu hore aan kugu reebay haddaad YouTube-ka iga daawanayso haddii aad meel kale naga daawanaysana waxaa muhiim ah intaad muuqaalka intaad YouTube-ka timaado muuqaaladii hore dhan hal playlist baan iskugu geeyay halkaas insha Allah taala ka daawan doontaa waxaan rajeynayaa si fiican fahanteen halkaad naga daawanaysaana waa Chilsom tan intaanu ku kulmi doona cashirkan oo kala lamid ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.